guddida doorashooyinka Somaliland ayaa maanta kala diray shaqaalaha ka shaqeyn doona doorashada Somaliland ee maalinta codbixinta ee 13 November. Shaqaalahani oo laga qaatay jaamacadda Burco ayaa qaybtii ugu horeysay maanta loo raray gobolka Awdal, halkaas oo ay ka howlgali doonaan goobaha codbixinta ee degmooyinka iyo tuulooyinka laga codeynaya ee gobolkaasi Awdal. Mas'uuliyiin ka socotay Komishanka ayaa dardaaran iyo talo bixin u jeediyay shaqaalaha loo carbiyay inay maalinta doorashada u shaqeeyaan dadkooda. tahay 9 bishii 12 2017 oo ay inaga xigto maalintii codka lagu ridayay muddo 3 cisho waxaanu halkan jaamacadda Burco aanu ka rarnay qaybtii koobaad ardaydii Komishanka doorashooyinka qaranka uu tababaray ee ka shaqeyn lahayd gobolka Awdal, halkaasoo ay ka baxeen 20 bas oo sida ardaydii soo gudan lahayd waajibaadka qaranka ee Komishanka doorashooyinka qaranka uu tababaray. inaanu raray dhalinyaradii jaamacadda laga qortay Burco ee loogu talagalay inay fuliyaan doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland. dadkaas oo aad iyo aad loo tababaray oo lagu celceliyay waanu isku hubno inay si aad iyo aad u qiimo leh ay uga soo bixi doonaan. dardaaran iyo ducooyin waanu faray waxaanu bilownay raritaankii ardayda oo aanu u gudbinaynay xagga iyo gobolka Boorame si ardaydana ay uga shaqeeyaan ardayda kale ee Booramana ay halkan u yimaadaan. waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu hawsha aanu wadno khayr nuugu dhameeyo. fagaarihii jaamacadda Burco anigoo ah Burco Ismaan Aadam TOT ka socda Komishanka doorashooyinka qaranka, waxa aan wadnaa ardaydii aanu kala qaadaynay dadkii goobaha ka shaqeynayay. Xabiib Xasan, Universal TV, magaalada Burco.